ardada gashay markay tartameen waxaa ka soo baxay maadadii imtixaankii ardada natiijadoodii ardada keentay waxay noqdeen 205 arday bay noqdeen A-kana ardada keentay waxay noqdeen 286 arday B-da waxaa keenay B+ka waxaa keenay 270 B plain ama B-da caadiga ah waxaa keenay 222 B-na ardada keentay waxay ahaayeen 683 C-da ardada keentay pluska waxay ahaayeen 649 C-da plainka ardada keentayna waxay ahaayeen 752 C-na waxaa keenay 407 arday baa keenay halka haddaad isu geysaan tiradaas waxaad ogaanaysaan ardada calooshoodu inay ku jirto C inay ku jirto oo ah sida ugu fiican ardada D-da keentay waxay ahaayeen 429 466 iyo 401 oo ah D-. guud ahaan ardada waxaa ka dhacay 82 arday waxaana ka maqnaa 31 arday ayaa ka maqnaa 4893 arday baa sidaas imtixaanka ugu fadhiisatay iskuulka Buraan baa sanadkan wuxuu ahaa iskuulka ugu performance-ga fiicnaa iskuulada ardaydiisu aad bay u yarayd oo 12 arday bay ahaayeen iskuulkaasi wuxuu keenay P+ buu keenay B+. iskuulka Boosaaso Public oo iskuul ardaydiisu ay 200 ku dhawaayeen ugu yaraan baa ku xigay oo lambar 2 galay iskuulkaasi wuxuu keenay B ayuu keenay iskuulka Galdogob isagana Galdogob Secondary wuxuu keenay B iskuulka Nugaal Secondary wuxuu keenay B iskuulka Muntada Qardho wuxuu